in dadkii mas'uuliyadda lahaa inaan u diyaarinay warbixin taabanaysa adeega caafimaadka oo aan muddo ururinaynay oo aan kala xiriirnay wasaaraddii caafimaadka. waxaan aragnay in mas'uulkii agaasimaha guud arrintaasi inaanu danaynaynin oo rabin in arrintaasi ay dhacdo. muddo 3 bilood aan sugaynay waan ka soo gudubnay. shalay waxaan u tagnay aniga iyo Siciid iyo nin kale oo mas'uuliyiinta ka mid ah wasiiraddii caafimaadka. wasiiradda runtii si fiican inoo soo dhaweysay. waxay aad weliba ay nooga codsatay barnaamijkan in ay tahay muhiim in la qabto oo iyadu ay danaynayso barnaamijkan in loo qabto. hadda ma naqaano aan kaftame magaasimiya yidhaatay ma iyadiyaa si kale u cabsatay. wasiiraddii saakay daqiiqadihii ugu dambeysay waxay tiri ma imaan karo. fursaddan oo kale aniga waxay la tahay xafiiskii madaxweynaha arrimihii bulshada aan ka soo qayb galay wasiiraddii caafimaadka ee u lahayd inay dadkeeda hor timaado oy dadkeeda la hadasho oo agaasimihii guud uu dadkiisa la qaybsado dareenkooda oo ay ahayd in ay dhegaystaan dareenka ay shacbigu qabaan ee dhinaca caafimaadku qabaan. inay maanta goobta ka maqan yihiin waxay tilmaamaysaa in aan mas-uuliyaddaba xisaabtankeedu in shacbiga lagu qanciyo. wasiirku wuxuu wasiir u yahay shacbigaas wasiir u yahay.